السلام عليكم صاحبتي meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada ciyaaraha waxaanu soo qaadan doonaa warkeena habeenimo Kamal Dariga waxaan eegi doonaa warbixinada ku saabsan Manchester City iyo Arsenal Premier League Pep Guardiola runtii markaan uu ku cabsanaya Arsenal wuxuu yiri markaan inaan garaaci karo ilama aha laakiin waxaan eegi doonaa sidoo kale sababaha ay Arsenal u guul dareysanayso ayaan eegi doonaa waxaan kaloo eegi doonaa warbixinada ku saabsan Barcelona oo dhulka ku jiidaysa Real Madrid waxaan kaloo eegi doonaa warbixinada ku saabsan Blow iyo akhbaaraadka goodiyada asxaabtay subscribe كنا صار كوي جانك سؤال كوي جري شيرتي لاكتر مسكدر كان صاحبك العيار وجعل بالبرامج كانوا قرسينا ذيك ماموس شركة هرمون وحرموين أذيك كوجارة أو ككوبان إنترنت كلية كهذا الكلية أما إنترنت يك وهذا الوذجرة نفط هذا كم ماموس حرموين كأذيك ماموس أو كجشبه هذا حدك لببقل طبعا يلبه أفريقيا. وإسلام بخار كيبان ويجي دون حويان وحق الله هذا الهيال الليجا كدي مركي تضبط كان برشة يكون قبته هجان كسرال بعود waxaa la leeyahay mar kale Barcelona bala liga ku qaadaysa si xiriir ah sanadkii hore way qaadeen kana way qaadayaan waa 2 consecutive year weeyaan oo ay Barcelona ku guuleysanayeen si xiriir bay noqonaysaa marka waxa la isweydiiyay Laporte midaan uu sameeynaya horena uu soo sameeyay waligii ma sameeyay ninka la yiraahdo Florentino Perez maya hatta tababare Real Madrid waqtiyo badan ma uu sameeyn in la hore isku ku guuleysto haddana kooxda isagoo ku cusub yahay ninka la yiraahdo Hans Felix ayuu midaan sameynaya waqtigiisii Bundesliga Bayern Munich laba xiriir buu ku soo guuleystay iminkuna la liga si kala saraf uu qaaday tababarahan haddana xiriir buu socday inuu ku guuleysto runtii Master Hans Felix wana ninka waligii aan final laga lumin weeyaan xataa ninka ka marka Perez intuu madaxweynaha ugu guulaha badan historic Madrid baan ka hadlaynaa haddana waligii la liga xiriir uma noqday kawar wasabta idin leeyahay Madrid Cristiano Ronaldo ka arkaysan oo leeyahay bantiin inuu la horal bis la qaaday Madrid bad leeyahay bantiin warshaqo iyo shaqo kuma lahayn nimankan inkastoo taariikhdii nimanka ugu badan horyaalka Spain haddana dabeecaday ka tahay baan ku uri nimankan inay horyaalka waqtiyadii ugu dambeeyaan ay zero ka ahaayeen waa laga yaabaa xabadko inay ku turtaan waa soo joogayeen cabaar xabadko kale qaadayaan laakiin iyagu sida Barcelona kale lama arkayo in horyaalka si cusub u qaadaan ninka la yiraahdo Florentino Perez waa ninka madaxweynaha lacagaha ugu badan suuqa geliya waa ninka kooxda Galacticos ka dhisa laacibiinta ugu waaweyn isu keenay jirwilgiis haddana wiligood uma awoodin in ninkan ka caawiyaan laba horyal isku xiga Perez marka waxa uu wiligiis ma qaadin horyaal isku xiga oo la liiga ah si isku xig uma qaadin laakiin Laporte marar kala duwan ayuu sameeyay midda hatta mar waxa jirtay inuu saddex xiriir ku guuleystay waa qaadi hadda laba xiriir buu qaaday oo u socday inuu ku guuleysto laakiin madaxweynaha Madrid wiligii ma sameeyin baa leeyahay runtii midda taayo taas waa Barcelona oo todobaadkan xataa kulanka ay horyaalka ay dheereysanayeen la arkay in 10 ciyaaryahan oo Spanish ah ay ku soo bilaabeen safka koowaad ciyaarta Isbaanyool yani sida taariikhiyan xataa Real Madrid iyo Barcelona mar walba ciyaaryahanada ka imaada Barcelona ayaa ku badan dhanka xulka Spain wiligeedii soo dhici jirtay waqtiyadii Iniesta iyo Xavi ay soo joogeen BK iyo Puyol iyo ay ku badnaan jireen basidooda marka yani inta badan xiriirka Spain oo kale waxay aad u jecel yihiin Barcelona soo saarkooda maadaama ciyaartooyga yani kooxda ay safayso wadanka u dhashay ay caawinayaan xulka Madrid marka dadka la soo gatay ayaa ku badan Firi todobaadkan kulankii Isbaanyool ay ka badinayeen 10 ciyaaryahan oo Isbaanara ayaa safkood ku soo bilowday kaliya Aruq ayaan ahayn ciyaaryahanka kaliya Spain ee yani ciyaarta ku soo bilowday midda kalena 10kaas ciyaaryahan bar safkood ugu soo bilowday Spain ka ahaa 6 kamida waxay ku dhasheen Catalan dhiga Catalan baa ku jira oo raba in Spain inteeda kale ka go'aan marka taas waa taa waliba sacuud may bogo Barcelona on booqday waxaan arkayay inay ku soo qorayeen yani qoraal u muuqda inay leeyihiin waanu aaminsanahay inaanu sameyn karno remontada inaanu kulankan ka dhiman oo yani wali nool yihiin bay aaminsan yihiin inkastoo Simeone uu ku xariiro khataata ah hatta waxaan arkayay Lamine Yamal oo bogi soo saaranaya LeBron James hadda kor waxa ku dhacday kulan kooxdiisa gool badan looga hogaaminay saddex inay comeback sameeyeen marka sawirka James uu soo saarto wax kale ma aha LeBron James in ciyaartan uu doonayo in remontada ay sameeyaan marka Yamal iyo Barca waxay qabaan inay aaminsan yihiin in remontada ay sameeyaan inkastoo ninkan laadirkan uu ku xariiro waxa weeyaan ninkan laadir waa ninkan 10 ciyaaryahan todobaadkan idin siistay ciyaartii oo horyaalka ay ciyaarayeen waana ninka ciyaari ugu dambeeyay markaad fiiriso ninkan altumayde ninkan yani Tottenham garaacday Real 3 ku dhufatay Tottenham 3 ku dhufatay Barcelona soo garaacday 2 hadda Barca ka soo badiyay Sevilla ka badisay 10 ciyaaryahan oo fariisiyay marka qaarnii ninku waa la garaacay macnaa Barcelona ninkan idinka si idin arkaa waa idin arkay wuxuu arkay
dabaalnimadan offside-ka xiranaysiin uu aragay macna waxa cabsida keenaysa waxay tahay ninka in arkay in difaaciina zero yahay oo offside iyo afaara ka wareegaysiino marka taas waa taa marka intaas waa Champions League La Liga waxa weeyaan Madrid madaxa kaga dhacsan Barsh marka la u socotaa remontada Virginia Barcelona inay dhacdo intaas waa Barcelona sheekada Premier League ku aadan saacad ugu dambeeyay horyaalka Premier League ay City soo badisay ciyaarteeda kulan ay gacanta ku haysato yani Arsenal ay la ciyaari doonto ciyaarta soo aadan haday badiyaan kooda baaqigana ay badiyaan wax loo isku dhamaadeen Premier League marka waxa weeyaan laakiin Pep Guardiola saacad ugu dambeeyay waxay noqon kartaa ciyaar maskaxda way noqon kartaa wax runa Pep Guardiola wuxuu yiri Arsenal easy ma aha ciyaarta ka hor isbuuc dab uu la ciyaari doono wuxuu yiri waxaan la ciyaari doonaa nimanka 49 ciyaarood kaliya laga badiyay 3 ciyaarood yaan la ciyaarayna waa nimanka yani macna hada bariyaha intiisan wareerin buu ka hadlayaa 49 game nimanka 3 ciyaar laga soo badiyay baan ka hadlaynaa uu leeyahay waa nimanka Champions League xataa marna aan laga badiyay si kan baan la ciyaarina uu marka easy no ma noqon doonto haddaan xataa itixaadku ciyaarino Arsenal easy ma wuxuu kale yiri ma taqaana ciyaartii Carabao Cup-ka aan la ciyaaraynin finalka gabi ahaan waxaan ahayn bur underdog يعني waxaan ahayn koox dadka dhan ay ku wada shakinayaan oo leeyahay Man City Arsenal iska bixi karta Arsenal koobka qaadaysa Allah uu leeyahay macna marka underdog niman ku badin ciyaarta wiri inagoona laga shakinaya yaan ku badin uu leeyahay runtii laakiin hadda ciyaarta marka la ciyaari doono ogow waxa la ciyaaraya iyadoo leeyahay wow City wax kale weeyaan hadda Arsenal underdog ciyaartana يعني Arsenal baa laga shakiray leeyahay Man City ayaantan dadka dhan wada garaacaysi Arsenal Arsenal taxad lagu garaacaya hadda saadaash ugu badan waa laga wareegay Arsenal ciyaarta inay badin doonto City ayaa loo badinaya لكن عيارتي كده وكابكا ساداش ugu badan waxa la siinayay kooxda kubadda cagta Arsenal inagu waxaan iska nuuri niman yani saadaash ka soo horjeeda baan iska ahayn wuxuu ku yiri ciyaarta xataa hal qof xataa oo wadanka Ingiriiska ku nool hal door xataa nooma dhigalina buuri in Arsenal ay inaan ka fiicnaan karno hal qof xataa nagu sharatamay maanu jirin buuri ciyaartii kale wakaabka aan ciyaarin oo qof wuxuu dhahay Man City Arsenal baa fiican Arsenal badinaysa hal qof naguma sharatamin buuri oo dhahaya Warsti baa ka fiicnaan doonta Arsenal marka العموم أرسنال معناها عيارتي ذا بيب وحقبا إنما كانوا إيزي أهين سيدو كله عيارتي هراء أن العيارين إنك بلوكيت يعني أهين بولي رنتي عدنا السادان لي سملا سيدو كله بيب غوارديولا وحو حتى قري إن أرسنال ولي أي تاي كوحدة قفي عن ودن إنجليزكا يقود أهان يوروب إلا حدا وحين قوكرتا عيار مسكعيد سيدو كله حين قوكرتا si sax inuu hadlay Pep Guardiola waxaan huwa Arsenal ayaantan ay soo warartay mooyaane maalmihii ka horeeyay Arsenal ka xoog badan u muuqatay marka wuxuu leeyahay kooxda ugu fiican Yurub baan la ciyaarina iyo Ingiriiska sidoo kale wuxuu yiri meesha soo socday marka City wuxuu ku yiri mataqaana taageeraashooda in hal jeer laga badiyay Arsenal ayaaba adage imagine buu leeyahay in Arsenal laba jeer aan garaacno isbuuci gudeed oo wax suurtagal ahayn buu ku leeyahay marka Pep inuu cidii ka waalayo waa laga yaabaa oo bariyaan u muuqda galab waa suurtagal وكسي والايو وليه قترات يعمل سيسو دغتان او غراع mar kale waxaan laga yaabaa in yani inay runtiis ay tahay adag tahay marka Arsenal oo hal jeer in laga baday iska adag tahay iska dib badan tahay maan barabnaa buuri inaan laba jeer garaacno isbuuciyo nasiibkeena qabnaa buuri Pep Guardiola marka wuxuu leeyahay ma sahlana in nimankaas isbuuciyo guud aan laba jeer garaacno leeyahay runtii laakiin kuweelihiis wuxuu sheegay in ciyaartan ay u tahay important game oo ay u tahay final wuxuu leeyahay kolkaas final buu inuu yahay wuu runtii waliba mid kastaaba final buu yahay wuu leeyahay ciyaarta taas waa taa dhinaca kale waxayaan waxyaabaha Arsenal banigooda uu u liito ayaantan u jawharsiin waxa loo arkayaa inay tahay arinta dhaawaca waxa loo arkayaa tan in noqon karto inkaar kale oo Arsenal ay mar dambe horyaalka ku waayi doonaan waxa uu leeyahay Gunners qatar bigu jira horyaalka Premier League inay lumiyaan waxyaabaha Arsenal u wacan in ay bariyahan ka jabnaato wax kale ma ah ciyaartooygu aad bay u daalayeen dhaawac baa kooxdii haya sidoo kalena si fiican uma ciyaarayaan Abriil waa sida caadiga ah bishay nimankan ay aad u liitaan wayaan reer Arsenal taariikhda marka la fiiriyo City Abriil aad u xoog badan tahay laakiin Arsenal waa galab bishaasu marka hadii laakiin ciyaarta City laga baday nimankan Arsenal waxay ku noqon doontaa burbur weyn bay ku noqon doontaa oo horyaalka already Arsenal waxa ka dhaawacan Saka Odegaard iyo Timber Calafiori Merino ayaa ka maqan Arsenal marka hatta ciyaaryahanada hadda ciyaaraya Arsenal wuxuu u muuqdaa inay aad u daalayeen bay u muuqdaan daal ayaa ka muuqda tusaale ahaan Eze dhaawac uu ka soo laabtay laakiin kooxda ma caawi karo Arsenal si xun bay u ciyaartay ciyaartii Bournemouth waa mid kamid ah runtii bandhigidooda ugu xumaa season kan dhinaca kale waxyaabaha Arsenal si kala duwan lagu sheegay marka waxyaabaha ay quwaradu ay qabaan waxa kamid ah Arsenal in problemkeeda hadda inay soo gaabato soo aruurto
waxa uu canbay ku leeyihiin Arsenal ciyaartooyda tababar zaid bay qaataan xilligan horyaalka dhamaadka marayo halka kooxaha kale marka loo barbardhigo xilligan oo kale tababarka ay yareeyaan ciyaartooy si nasiino badan u helaan recovery degdeg ay u helaan oo soo kabtaan laakiin Arsenal ciyaartooydu waxay ku daalaan almiinta fara badan qalimaan la isku dhiibaayo jarka booday ciyaarayaan tuuga garoonka la soo gelinayo jam wa tababarkooda halka Pep Guardiola ciyaartooygiisa yaa uu inana siinayo ninkan kooxdu waa mashquuliba balaay iyo qalimaan iyo qajajac buu u dhiibayaa oo tababarkii dhan waa waalay marka qoradu waxay aaminsan marka xilligii ay ahayd Arsenal ciyaartooyga inay tababaro yar ay siiyaan oo khafiif ah tababaro culus bay siinayaan bal wuu runtii taasna waa waxyaabo kale oo lagu soo eedeeyay Gunners sidoo kale waxa iska haya mental problem markan maskaxiyan u jiray reer Arsenal nervous weeyaan oo pressure-ka Kenya guul hatta wad arkaysaa tactic ay isticmaaleen kooxda Bournemouth tababaraha Orella wuxuu isticmaalay tactic ah sidii Raya uu kubadda ugu joojin lahaa inuu soo tuuro David Raya wuxuu ciyaartooyga badan u diiday in Janis uu kubad ku soo tuuro oo baas uu ku dhiso kubadda ayaa loo diiday way raacayeen isla markii uu kubadda u qabsado way ku ordayeen macna taasoo يعني keentay in Raya uu baas gaarsi waayo ciyaartooyga ama kubadda uu soo dhiso marka Arsenal bareen waxa la art Guardiola wuxuu ku xireeyay ciyaartooyga oo maxaa la Arsenal dhaxda kubadda inuu soo gaartaba wax soo gaarsi Bruno ka ilaalinay ciyaaryahanada oo kooxda waxay fahmeen oo Bournemouthna in Raya uu yahay nin kubadda soo dhisay isagay bay ka cabsiinayeen mar walba kubadda uu soo tuuraba way ku ordayeen marka alcamum Arsenal hadii koobkan laga qaado waxay noqon doontaa mid kamida yani hogaankii ugu badnaa soo heysay haddana horyaalka laga qaaday bay noqon doontaa yani burbur bay ku noqon doontaa kooxda Arsenal midda ku aadan qubaradu inay leeyihiin Arsenal waxaa dilaya tababarka zaidka ah ay sameynayaan xilligan sidoo kale Sacuudi waxaan arkayay runtii laacibkii hore kooxda Barcelona iyo Premier League ka soo ciyaari jiray Gary Lineker oo iminku falanqeeya ah Lineker wuxuu cambaareeyay habka ay u tababartaan kooxda Arsenal wuxuu aaminsan yahay in Arsenal sabab ay u tahay qaabka xun iminku u ciyaarayaan tababarkooda wuxuu aaminsan yahay ninka kan in ciyaaryahanadu ay tahay inay isdajiyaan oo normal training bis ay sameeyaan laakiin isku dayin waxyaabo aan caadi in la sameeyo yani wuxuu Arteta ugu baaqay wuxuu leeyahay Arteta inta naqaan in ka badan baad keentay tababarada caadiga ay dadku sameeyaan ma sameeysid marka waxa uu ku leeyahay ninka kan war ha isku dayin waxaan macquul ahayn cilmiyan hore u jiri jirin ayaad rabtaa inaad sameeyso يعني واتي لسه شيء قاعد أرتيتا إن عياري هندا وكوبد يقلن هالمر السوق ديبي أو يري وضع الشقين تويان واتي تيك توك ماشي وكداري وسيدو كل واتي الأركي قلوب نلأه وسمي وحياه كوبد عطار لوجس أرك معه وحياه ما لا يعلق مش خوسين مركات فيرسين تبرتو ذا إيمان ما وحي توبركوس سمينا يعني تيك توك يقجع iyo qalin iyo markaad fiirisid iyo horyaalka sida loo tumaayo ama xaalku soo yahay inta juhdi bixin lahayn dadaal ay bixin lahayn waxa ku mashquulsan yihiin qalimaan iyo banooni iyo TikTok iyo nal la daara iyo tuugo garoonka tababarka la keenay iyo heeska Liverpool garoonka laga daara iyo waxa kale oo aniga hadda arkaya maanta oo hadda igu darneed xataa ninkan liin dhanaan xataa inuu tababarka keenay liin dhanaan war dadka tababar aanu jirin bay sameeyaan waxaanan wuxuu yiri ciyaartooyga waa waalo salary pressure ku sii badanaysa war normal caadi tababar iska sameey laakiin adiga ciyaaryahanada maalin kasta cilmi aan jirin oo wali la soo arkina keenay qalmiga ya baneno tuugo garoonka ila keen soo kuma yaabaneen tababarka xataa saacad dambeey warbaahintu waxay leeyihiin waxyaabo ninka xataa uu soo sameeyay waxa kamid aha in liin dhanaan iyo dublad uu garoonka keenay dublad iyo liin dhanaan waad dublad baashi waad liin waa ka fakaways marka dadka maala yacni isku mashquuliyaan yaa marka sababta marka liinta loo keenay marka ogow inta u isticmaalay wax kale ma ahano waxa uu rabay wada shaqaynta ciyaartooyga ee sida loo shaqeeyo marka cadaadis jiro afka ma la sheegi karo intaas liin nana garoonka la keenaa liin wada shaqaynta oo alwleemca sidoo kale arinta dubnada domino qana ayeen u keenay mid qana baashta ciyaartooydu waxay isku xirxirayeen macallaha dubnada si taxadar leh wuxuu kala jeedaa hadii hal dubnad ay dhacdo dhammaan wax dhan way wada dhacayaan tan waxay ka dhigan tahay khalad yar aanu sameeyno wuxuu dhaawici karaa ama saameyn ku yeelan karaa kooxda oo dhan marka wuxuu ugu baaqay Lineker Arsenal waxyaabahan oo dhan inay pressure saarayaan ciyaartooyga oo Arteta ay tahay inuu isticmaalo tababarka umada ay sameeyeen caadiga inuu isticmaalo war dadkan waraafiri
dadna tababarku wax iska sameeyay iyaga iska qosla iska baashaal iska sameeyay idinkana bareeshar iyo qalimaan iyo lindhanaan iyo kada wareegaysiin haddana idinkaas oo hadan dadaalka faran bixino juhdiga badan bixino hadan garoonka marka ciyaartii markii la daawanayo dad liita u muuqataan nimanna iyaga iska baashaalayo maalin kasta la iska fasaxo ayay Brunes ugu fiican ciyaaraan marka yaab wayaan cidda tan waa ka marka sababtii shalay u badiyeen wax kala ma ahayn Guardiola wuxuu ku yiri mataqaana markii laga badiyay Arsenal laga badiyay intaysan ciyaartu jirsi la ciyaar wuxuu ku yiri ciyaartoogiisa relax ka dhigaan oo aysan si xad dhaaf u fikirin ninna wuxuu fiirinaa maskaxda ciyaartooga iyuu la dagaalaya wuxuu leeyahay caadi iska dhig relax iska dhiga halka nimankana pressure iyo qalimaan iyo liindhanaan iyo laga dawardayo war fiiri Ranger wara Rangerka inta u saaran tahay ka wara maajiga u saaran tahay war fiiri ayaantan baashaalo iska war shal soo caaw ku ciyaar wara Chelsea idinka blockade yaatid Arsenal mulku balajeysano Liverpool waa tifrando la iska qaatay markii lagu kala baxay ciyaartooda nimankan waxa lagu sameeyay ciyaarta iska socoto waxa lagu ciyaaray caagi biyaha kor loo tuuray oo intuu tuuro ka halaabaysa kadib marka waa nin caagi isaga mashquulaya idin kale is dhibaysay Arsenal oo pressure iyo madaxanu isku dilaysiin nimanna garoonka caagi isaga ciyaarayaan waxa lagu kala tagay pressure laanta lagu kala tagayo waa ka jeerki garoonka ciyaarta Chelsea caagad ku ciyaaraya ilaa waa iska arkeen sababta 13 ciyaar bay Chelsea ka badilayeen kooxda Manchester City waa laba kala tigo loo laabanaya tujelka tababaraha markaas Champions ka badiyay finalka City marka xataa City way iska dhaga tirtay xumaanta laga sheegay Rangers intaan la wareegin haddana arkaya ciyaaryahan fiican ayaa uu ku soo baxay ya dad badan ayaa waxay kaga digeen City intaan qaadan ninkan inuusan yacni dabeecadiisa fiicnayn sidoo kale waxay yiraahdeen ninkan ma joogtay bandhiga ayaantan waxa arkay inuu joogtay bandhiga oo fiiri waxa arkaysa ninka Sisakan inuu haysto 9 gool iyo 14 caawin inuu la 3 gool ku leeyahay baad arkaysa 43 ciyaarood marka ma joogtay yiraahdeen laakiin City waxaas waa ma qaadan haddana wal arkay ciyaartoy fiican la wareegeen marka isagu intuu xataa ku beerin Man City Dortmund baa ku dhaweyd marka City dad badan kaga digay arintan laakiin way ku adkaysteen xataa Liverpool guriga ku jirtay Slot markuu Spurs dooranay wuxuu ka fikirayay inuu jeerki aado ya marka taas waa taa Balmerna waa ka ilaa hadda foom xumaa Chelsea ku haysta wana ku dhibay inuu iska celiyo kooxdiisa Man City shalay waxay ahayd kulankii toddobaad Balmer isagoo Chelsea ka hor imaanaya Man City marna ilaa hadda waa ka badilay waxa ay guuldar ka soo gaartay Manchester City 4 jeer 3 jeerna baraajul la galay ilaa hadda Balmer City kama badin tani markuu ka soo tagay runtii taa wata Rosenberg waa ka Jamil halis buu ugu jiraa inuu waayo 8 guuldar ku dhacday tani markuu Chelsea noqday tababare u noqday 1 ciyaarood waxaana Chelsea hadda ku dhacay rikoor xum oo ay kamid tahay inaanu Chelsea ay shalay u ahayd markii ugu horeysay tan 98 in 3 kulan isku xigtay Premier League Chelsea hatta ay dhalin weysa gool waxa inta kaga daran Chelsea in kaliya hal ciyaar ay badisay 6 ciyaar la soo dhaafay oo 4 game laga badiyay 5 ciyaar la soo dhaafay Premier League marka Rosenberg form xuma ayaa ka muuqanayso taa wata kulay waxaad arkaysaa dhamaadka goodida inkastoo wali dadka Ronaldo iyo Messi isku haystaan laakiin waxaad arkaysaa dhamaadkooda in badan Messi Ronaldo sanadkan haday ciyaaraan Sisakan World Cup ka ciyaaraan kadib warkoodu waa soo yaraanaya iyaga soo gaabtay waa Messi Ronaldo oo iska haysan jiray Ballon d'Or-ka musharaxiinimadooda waxaad arkaysaa 225 marna midkood laguma soo darin Ballon d'Or walfiiri 10 sano ka hor meeshii ay Messi joogeen ka hor sanadkan way ku jiri jireen Ballon d'Or iyagana stage isugu soo hari jiray laakiin lagu laashan waxaad arkaysaa in odayaashu xataa aan lagu soo darin musharaxiinta marka waayahooda ugu dhamaaday gabalkooda ugu dhacay sidoo kale waxaan Cristiano Ronaldo isaguna ugu dhiisay Sacuudi hadda Pro League u dhow yahay horyaalka ku guuleysanaya odaga waa ninka haysta 7 gool 7 ciyaarood ee la soo dhaafay waana ogowhe 4 sano jir waa macnaha xilli Messi uu wali raadinayo guushii ugu horeysay garoonka tiimkiisa toddobaadkana ee cusub waa uu badi waayay laakiin sababta waxaan arkay Marcelo oo Ronaldo ka soo ciyaaray iyaga waxa la weydiiyay Messi ama Cristiano Ronaldo waa kii ciyaaryahanka aad looga cabsado ka baqayso xirfadiisa wuxuu sheegay inuu Messi yahay ciyaaryahan aad looga baqo kubadda cagta marka loo eego Cristiano Ronaldo wuxuu ku leeyahay way adag tahay Messi in la joojiyo ma garanaysa hatta Messi waxa uu sameyn doono yacni hal mar oo kubaddu qaato ayuu Messi ciyaarta ku bedeli karaa ku leeyahay runtii marka wuxuu kala jeedaa macnaha Messi inuu normal ahayn oo uu yahay ciyaaryahan special ah oo uu ka duwan yahay cid kasta oo kale يعني ميسي كليا ما هم بكل جدا عياريهن وين وعجيبة معنو another level بكل جدا markii wuxuu leeyahay hadaan ku badda cagtu ciyaarno labada ninka uu loogu cabsi badan yahay waa Messi wala runtii ilaa Messi hal second buu ku badda ku bedelaya wala ninka la soo baxay dadka wariyahan doonayo
inkastoo markaad qaataan ay si fiican u noqon runtii ciyaartooygan markii la qaato aynu si fiican ku soo bixino waxa weeyaan wuxuu noqday Brazilianka ugu gool badnaa 20 gool ka badan Premier League season ka dhaliya 20 gool si ka dhaliya waana Brentford ugu horeeyay ee sida sameeyay runtii xilli Jaguar ku guuleystay koobkiisa ugu horeeyay ee wayisa tababarnimo asxaabtayna nabadgelyo